بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ومركل إيو برنامج كنيسو كوبدا إيو قرفينتا بواقتي حكررسي وحنا وذاك دونا مانتا نسليك دونا بوغ لهذا وي سليم maxay noo saxana buugan waxa soo saaray qoraa Matt Walker waxa soo saaray sanadkii 2007 buuga si guud wuxuu kaga warramayaa qoraagu hurdada iyo jirka iyo guud ahaan nolosha qofka saameynta ay ku leedahay qoraagu waa qoraa ku takhasusay xanuunada la xiriira neerfaha wuxuuna inta ugu badan aad wax uga qoraa arrimaha la xiriira hurdada iyo saameynteeda caafimaadkeeda iyo waxyaabaha la xiriira inta badan aad uga qoraa sanadihii dambeeyna oo ku mashquulsanaa waa barasar oo jaamacadda California wax ka dhiga weeyaan marka buugu wuxuu ku eegayaa hurdadu saameynta ay qofka ku leedahay guud ahaantii iyo nolosha iyo haddii hurdada qofku uu ka tago waxyaabaha ka dhaxli karo waxaan isku dayi doonaa bal si kooban inaan nuxurka buugayda la wadaago qoraagu tusaale soo qaadanaya wuxuu leeyahay naftaada su'aal isweydiin toddobaadkii ugu dambeeyay maalintaada joogto ilaa iyo maalinteedii toddobada cisho intee lag baad hurdo kugu filan seexatay intee lag baad saacadood dhameystiran seexatay dabcan waxa laga yaabaa inaad tiraahdo markii ugu badnaa wax seexday 7 saac ama 6 saac baan seexday haddii ayna ka yareenba oo ay dadka inta ugu badan imika waxay seexdaan 5 saacadood ilaa 6 saacadood inta ugu badan marka weeyaan habeenkii oo qof markuu habeenkii seexdo 12 ama 12 waroortiina ku cumelaha 5 ama 6 waa 6 saacadood ilaa adigu 7 saacadood marmar weeyaan marka saacad baa ayaa ka baxaysa marka su'aashaas marka isweydiiso bal adigu naftaada ka jawaab kadibna marka jawaabta soo celi qoraagu wuxuu leeyahay kaliya ma aha marka su'aasha ka jawaabto dad badan baa kula qaba dad badan baan inta aan buuxinin oo aan seexanin waayo dadkii imika waxa aad u saameysay teknoolajiyadan iyo casrigan baa saameeyay oo hurdadii iyo xilligii la seexanay qayb weyn marka hoos ugu riday dadkeenu xilligii hore marka de maghrib la soo tukado ama marka laga baxay hadana shay la gaaro kadib la cashin jiray wala seexan jiray waxa laga yaabaa in ugu dambeyn 9ka hadii loogu dambeeyo 10ku waxyaan jirtay xilli dambe ay ahaan jirtay inuu 10ku fiid marka inoo tahay marka waa arin lagu la qabooyaan laakiin jadwalkaaga inaa saxdiin isku day waxaan isweydiinaynaa marka maxay noo seexanaa waxyaabo badan baynu u seexanaa waxa ugu weyn qofku hadii uu seexan waayo waxa ka lumasa oo waayaya wax loo yaqaan marka xasuusta hadduu qofku 5 cisho isku xigta ama 2 cisho isku xigta uu soo jeedo wax badan xasuusan waayo ayaa laga yaabaa gabigiisu maskaxdu isku dhexdaadato oo gabigiisu uu dareemo diiqad badan oo maskaxeed qofku dareemo halka qof marka uu seexdo uu ka dareemo nafis badan iyo inuu qofku qof deganahay maskaxka ahaan iyo jir ahaan buu yahay qof aad u degan marka nasiimo ayaynu ka helaa sidoo kale xasuusta maskaxdu qayb marka hurdadii ay ka tahay waxa jirta marka hurdo khafiifa iyo hurdo culus wax loo kala yaqaano hurdada khafiifka waxa weeyaan tahay qofku seexdo maalintii oo kale duhurkii oo kale waxa laga yaabaa qofku saacad seexdo saacadii badna ugu badnaa 2 saacadood qofku seexdo hurdo khafiif oo qofku galayo kadibna marka uu soo kacay weeyaan hurdada laakiin ilaa 5 saacadood 6 saacadood isku xigta qofku hurdayo waa hurdo culus waa hurdada keenta marka qofku inuu riyoodo oo maskaxaama ku dago qofkii in badan hurdo wax laga yaabo marka inuu mataqaanay maskaxdiisa degto riyana qofku yimaado tan uu ku riyoodo marka way sabab badan bay noo seexanaa nasiimada iyo xasuusta iyo waxyaabahaas ayaa kamid ah waxa muhiim marka qoraagu ereeyinku eegay waxa kamid ah hurdadu saameynta ay ku leedahay guud ahaan qofka wuxuu leeyahay hurdadu waxa weeyaan qofku uu fahmayaa qiimaha mataqaanay qofku uu fahmayaa qiimaha hurdadu ay leedahay buu fahmayaa markuu yaani buugana oo akhriyo isku dayo qofku inuu wax badan uu ka fahmo qiimaha ay hurdadu leedahay ayuu qofku si fiican u fahmayaa qodobka labaad hurdadu waxay si toos ah u saameysay qofka saameyn ku leedahay caafimaadkiisa xanuuno badan hurdo la'aanta keenta xanuuno badan waxa keena mataqaanay qofka hurdadu ku yaraato
xanuuno badan qofka waxa ka hurdadu ka khalkhasho seexan waaye hurdaduna way kala fiican tahay habeenka qofku seexday ta maalinta uu seexdo aad buu kala faa'iido badan yihiin wax faa'iido badan habeenka uu seexdo 4 saacadood habeenka seexdo ayaa ka qiimo badan maalinta dhan oo hurdo waxa laga yaabaa maalintii inaad heer kulkan jirkada iyo heer kulkii mantaqana hawadii jooga ayaa markaa islahayn oo kala duwan taas markaa keenaysa qofkii inuu gabigiisu waday qadar ama maalintii oo dhaxdato 6 saacadood 7 saacadood hurdo ama maanta dhan hurdo inuu dareemo way markaa hurdadii muhiimadeedii qodobka u dambeeya hurdadu waxay qayb ka tahay horumarinta qofka waxyaabaha uu qabanaya kariirkiisa ama shaqadiisa iyo ganacsiga qayb bay ka tahay oo qofka si fiican u seexda shaqooyinkiisa la qabsada si fiican oo wanaagsan buu u qabsanaya shaqooyinkiisa iga qofkii kala saameyn bay ku keenaysaa noloshiisii iyo shaqadiisii iyo hawlihii uu watay guud ahaan buugu intaasaan anagu isleeyahay waa inta ugu muhiimsan in badan oo kale oo buugu ka warramayna weyshitaan idin la wadaagin waxaan rajaynayaa in buuga la wada akhriyo dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin